صاحب xaaskaaga weli kuu dhalinayaa xaaskaaga shan sano qabtaa weli maysan kuu dhalinayaa waxaa rabaa inaan guursado mar labaad ma guursano saxabi maya inaan kula guursadaa rabaa maa ila guursanay maalinta ma arrin ma guursan lahaa naaga laabta kalisa guursanay ani saa hadalka uma dhigin keliya waxaan ku dhahay waan kula guursanaya oo u malaynaya inaan dhacayso muddo 5 sano isqabnay wax u badanna iimaadan dhalin sidaas awgeed baan ana kula guursanaya wax kale ma keliya inaan ubad helo ubadka ilaahay ma anaga hayna ma dadaalno waa sax ubadka ilaahay laakiin dadaal u baahan soo ma dadaalnaya marka may inta dadaalkana waan dadaal waa guursanaysaa weliba naag aniga camal ay guursanaysaa soo dooqaaga aniga camal ma waa guursanaysaa laakiin bisharti waa isbaarayna hadday mushkiladda aniga noqoto naag alaal naagta rabto guurso arooska qarniga dhigo anigana waa imaanayaa laakiin hadday adiga noqoto maxaa samaynaya hawlwalan xabiibi anaa garabkaaga ah mar walba wax walba wataani waa kugu jecel baaritaanka waxa uu sheegay in dhibaatadu aysan gabadha ahayn oo ay tahay xagga حبيبي هو الولد garabkaaga ah mar walba maya hawlwelina wax dhibaato ah ma jirto waxaana waa wax la xalin karo isbitaalka Marwo Fertility wuxuu u taagan yahay in dhibaatooyinkan oo kale uu xaliyo horena uu soo xaliyo uu soo guuleystay kiisas kuwiina camal ah marka caruurta ama awlaadda Ilaahay baa haya laakiin waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in problemka hadirtan aad tabanaysaan xalino problemkan kuwa la midana hore u soo xalinay idinka Ilaahay waxa rajaynaynaa in awlaad qurux badan oo aad dhasheen aad dhabta saaran doontaan marba hadii aad soo gaarteen meesha ku habooneed oo ah Marwo Fertility Center warheeda xaaji say wax leedahay isawiilkayga fatiijinay hooyo qurxo anisi away geemkana ciyaarayso iska dhaaf waxbarashada aad sidii lagu dhalay waad ogeeday waxbarashada aad waxaa jecnuga jugjugta gaday xagee u garaacaysaa ardaad orma ororyaa aabbaha ma qaladna iska dhig